الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا اليوم يوم عيد الأضحى، أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو هذا يوم عيد الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر. ما أنت ومال وين قال ما إلهي ما أنت وين sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, maalmaha waxa ugu weyn maanta oo xoolaha la qalo. Allahna wuxuu ku sheegay inuu yahay yawm al-hajj al-akbar. واليوم والزمن لا يعظم إلا لما فيه من الطاعات والخيرات، إلا لما فيه من الفضائل. زمنku sidiisaba wuxuu ku kala fiican yahay khayrka dhexdiisa galaya, sidaasuu ku kala fadli badan yahay. maanta waxaa dhaca acmaasha xajka kuwa ugu badan. أكثر أيام أعمال الحج ومناسك الحج تقع في هذا اليوم. sidaas daraaddeed baa يوم الحج الأكبر lagu magacaabo. nabiguna yidhi صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام. weynaynta maanta oo kale la weyneeyo macnaheedu waxay tahay in lagu weyneeyo ilaahay taacadiisa. saas daraaddeed baa wuxuu ku bilaabanayaa takbiirta: litukabbiru allaha calaa maa hadaakum, allahu akbar allahu akbar allahu akbar, laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamd, allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila. tukabbiru allaha calaa maa hadaakum. saas daraaddeed maanta iyo maalmaha soo socdoo ka dambeeyo ayaamu tashriiq, ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaah buu nabigu uri sal alla alay wasalam. waa maalmo cabitaan iyo cunitaan xalaasha ilaahay tabaaraka wa tacaala la dheefsado, ilaahayna la xuso, wa dikri illaah. allana qur-aan kariimka wuxuu ku yidhi: wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat. maanta iyo saddexda beriye ka dambaysa ilaahay xusa. maalinku marka qiimo wuxuu ku leeyahay in ilaahay taacadiisa laga buuxiyo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala la weyneeyo, qalbiga inaynu ka weynayno oo qalbigeenna ilaahay ku weynaado, lisaanka iyo carabka inaan ka weynayno allahu akbar takbiirta la badiyo, ama takbiirta muqayadka bacda salawaat ha noqoto, ama takbiirta mutlaqee xilli walba iska furan ha noqoto. allah inaan lisaankeenna iyo carabkeenna ku weynayno, sidoo kale nolosheenna inay ilaahay ku weyn yahay tabaaraka wa tacaala, oo wuxuu raalli ku yahay aan ku dadaalo, wuxuu ilaahay xarimay oo uu diidayna aynu ka fogaano. macnaha maalinku sidaas weeye. intaa kadibna in aynu xalaasha ilaahay inoo xalaaleeyey ku raaxaysano, ciyaarta mubaaxa, damaashaadka mubaaxa. nabigu sal alla alay wasalam qadima almadiina waliahli almadiinati yowmaani yalcabuuna fiihima. madiinuu nabigu sal alla alay wasalam isagoo soo hijrooday, laba beri oo ciyaaraan bay lahaan jireen oo damaashaadaan. islaamka ka hor jaahiliyadii nabigu markuu u yimi sal alla alay wasalam wuxuu ku yidhi: laba beri ood ciyaartaan baad lahaan jirteen, ood ciidaan oo damaashaadaan. allese wuxuu idinku bedelay laba maalmood oo ka khayr badan, alfitr waaladxaa. sidaas daraaddeed ciyaarta mubaaxa, damaashaadka iska bannaan, xaaraamta laga fogaanayo, xalaasha in lagu raaxaysto, maalmahan oo kaleeto munaasabad bay u tahay. ciyaalka iyo dumarka iyo dadka tawsica in loo sameeyo sidoo kale wey. marka xalaashii iyo waxaan isku dhex wadaynaa ilaahay taacadiisa iyo dikrigiisa, xaaraamtana waynu ka fogaanaynaa. wabidaat munaasabadda maalmahan oo kale waxaa aada u badan in dadku ay ku farxaan oo ay ku damaashaadaan waxyaalo diinta khilaafsan
وإلهي حرمي تبارك وتعالى تانا هلقا ديكتونادو ما أنت واتشمع ما أنت واتشمع وانا عيد الأضحى تشمعنا وينوتها سيداس دراديد مساجك تشمعنا ولا تكن دونا صلاة الجمعة ولا تكن إن شاء الله تعالى سيد النبي جنوب السماء مركو الرخصية وضدك الجمعة تكذيري وهذا السيد إسكد إنكرتان أي النبي يقول صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون أنه سوى جمعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحان خلاف كتيرين وهذا الكتيرين إنه يقول في عده وقول فضي بدنته الروحي عيدة تكذي إنه جمعة تكذو روحي جمعة كالرخصيصون إيمان وإنه الظهر تكذو وهي كراء لكن وإن الظهر كاللقتين إلهي تبارك وتعالى وحويدي سنينا مناسبة قالقة إيمانتا خيرك وبركة له إلهي نقص هذه تبارك وتعالى مالك كان دحديس إلهي وحويدي سنينا إنه مالك مالك سنبدي عافماد إنه قارسيه الله تبارك وتعالى مصائب تنشرتي عذر رضا إنه نقد القاضي أنت أجرنا إلهي كعافيه أنت أولمتين إله النحريسته عيدكم مبارك وسعيكم مشكور تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.